daawadayaal waxaynu dib u milicsan doonaa taariikh la soo dhaafay oo ahayd 2017 xilligaas oo ay kubra xaaji xasan xaaji maxamuud ay ka mid ahayd shakhsiyaadkiyadu ku doodayay in muuse biixi cabdi aan laga dhigin murashaxa loo cumaamadayo kursiga jagada madaxweynenimada ee xilligaas madaxweynihii xilka ka degay madaxweyne silaayo iyo beeshiisa habarjalo ay soo jeedinayeen ama ay xilligaa abaabulayeen qabanqaabadii loogu sharaxayay murashaxnimada kursiga talada dalka haya ee madaxweyne muuse biixi cabdi hase yeeshee kubra xaaji xasan xaaji maxamuud ayaa xilligaa iyadu soo jeedisay ama ahaa shakhsiyaadkii ku doodayay in muuse biixi cabdi aan lagu aamini karin ama aanu ahayn shakhsi hogaamin kara talada dalka somalilan iyo guud ahaanba isku haynta shacabka yeeshee kubra xaaji xasan xaaji maxamuud oo xilligaa iyada lagu diiday ama loo arkayay iyadu si qof shakhsi ah ama si gaar ah u diidan muuse biixi cabdi ayaa xilligaa waxa ay markii lagu gacan sayray taladeeda waxa ay tirisay gabay ay ku muujinayso dareenkeeda oo ay ku tilmaamayso ama ay ku sharaxayso waxa laga dhaxli doono muuse biixi taladaa maanta lagu cumaamaday ee la isku afgartay inuu noqdo murashaxa hogaamin doono xisbiga kulmiya madaxweyne siilaanyana talada ku wareejin doono gabaygaas oo ahaa xilligaas muuse biixi loo waday kursiga uu maanta ku fadhiyo meel kasta somalilan dhanka gobolka sool gudaha ilaa iyo gobolka awdal oo og tahay intii muuse biixi cabdi uu qabsaday talada ina si gaara ah taliyaasha ciidamada ay askartooda u dilayeen waxaa dagaalo ka socdaan gobolka sool magaala madaxdiisa laascaanood maxaa laga dhaxlay muuse biixi cabdi intii talada hayay jabhada ma dilaacin mise ma dilaacin caara ayaa isla markiiba jabhad ku dhawaaqay intii ka dambaysana waxaa dhacaya dilalka tooska ah iyo xukuumaddu geysanaysay oo ka mid ahaayeen mudaraadadii ay soo abaabuleen ee salmiga ahaa mucaaradka ee lagu dilay 7 qof halka 100 iyo in ka badanna ay dhaawacmeen burcay iyo sanaag sool iyo awdalba maanta u dambeysay maxaa ka dhacay gobolka awdal waxaa askari dilay taliya oo ahaa ciidamada badda ee saylac golayaasha aqalka golaha wakiilada ayaa iyaguna maanta ku gacan sayray in khudbadii madaxweyne muuse biixi sheegay inuu isniinta toddobaadka soo socda ee bilaami doono uu ka jeedin doono labada aqal uu ka jeedin doono khudbadiisii oo ay ku tilmaameen gudoomiye ku-xigeenka oo maanta hadlay waxa uu sheegay in muuse biixi cabdi sharciga uu jabiyey oo muddaxileedka khudbadaasi uu dhaafay wakhtigeedii waxa ay ahayd taladii kubra qofka dadka ugu ildheer ayaa ugu ayaan daran dad kubra oo ka mid ahaa dadka aragtida dheer xilligaas lagama hoos qaadin taladeeda kubra xaaji xasan xaaji maxamuud oo xilligaa iyada lagu diiday ama loo arkayay iyadu si qof shakhsi ah ama si gaar ah u diidan muuse biixi cabdi ayaa xilligaa waxa ay markii lagu gacan sayray taladeeda waxa ay tirisay gabay ay ku muujinayso ku tilmaamayso ama ay ku sharaxayso waxa laga dhaxli doono muuse biixi taladaa maanta lagu cumaamaday ee la isku afgartay madaxweyne siilaanyana talada ku wareejin doono gabaygaas oo ahaa xilligaas muuse biixi loo waday kursiga uu maanta ku fadhiyo hase yeeshee waxaa la yidhi ummadi haddii aanay lahayd diwaan dib loo raaco oo markay xaalad timaado laga eegin ummad jirta ma aha hase yeeshee haddii aynu gabaygan maanta ay soo qaadano iyo xaalka somalilan ay ku sugantay ma dhacday wixii ay maalintaa kubra xaaji xasan xaaji maxamuud ay ka digaysay kubra xaaji xasan xaaji maxamuud oo halkan waxaan kusoo gudbinaya haddii allaha ugu dalay ogolaado gabay dhagaysi wanaagsan ummado isu soo ururay oo oonu qabay dowlad oo ool miyiga taalay iyo tuulaba istaagtay oo subax intay oogsadeen duco ilaahow leh oo kala dambeyn aadaha iyo horumar eegayay iyo urugaday soo mareen welid ilowsiiya oo adhiya geelii baxoo maalkii ka ilaaday oo aqaladoodii iyo guryihii BM ebersiiyey oo ay abaar iyo colaad goysay adhaxdooda oo odaya daaliya habriyo ubadba yaacayay oo aaya talintoodii iyo amal ku raad joogay ama eeri dhabangeel sidii halaqad ugaansan kuwii muuse aabow lahaa eeda hadalkii waxay eersanayaan farii ololahoodii waatuu albaabada ku xidhay 2 ayaamoode waxay maatadii ooyeysaa meel awaare ah
amankaag dadkii qaadiyayo aamus baa dhacaye argagaxe markii uu kursiga saacad ku ekaaye ilkihii iyo qaniiyadii ayaan cidi ilaa weyne ilihii dhaqaalahana gee eheladiisiiye arji shaqo nafaan sacad ahayn odaygu siin waaye arrimaha gudaha seedigii bari ku eedooye ciiddii waxaa loo igmaday duul aqoon darane awraan hayinhayn ayaad agab ka saarteene ooriyo walaaliya jabhadana lagu aafeeye wax la yidhi abeesiya askari aaminaad ma lehe afrikaanna wow caadadii amar ku taaglayne ina kaahiniya biixi baa loo adoon yahaye rabiciinsana ina wateen una afduubnayne waxay aarariyuudu eryataa ubad masaakiine afartaa jahaa loo qaxo waa aleel qubane ooridii cigaaluu ka tegay loo arxami waaye waa kaa islaamihii ka raray aqaladoodii wax la yidhi ayeeyooyin baa oobigii yimiye iridaanan laga dhaafi karin wiil atooraahe kuwii eelka dhigay bay intaa ku ag wareegaane ereygooda ruuxaan tixgelin jeelka ku abaadiye erge iyo waxgarad iyo la diid culimo awdiine argagixiso lagu sheegay qofkii fure idaajaaya abaarsana waxaa lagu bartaa aalad kiristaane udub baa inoo dhaamtay oo erey run weeyaane meel aar ka kacaybaa atoor ahe fadhiistaaye riyaalana ammaan buu lahaa aadahoo badane kulmiyana inkaar iyo jin iyo ugubi weeyaane kuwii muuse aabbow lahaa eeda hadalkiiye waxay eersanayaan farii ololahoodiiye waatuu albaabada ku xidhay 2 ayaamoode waxay maatadii ooyeysaa meel awaare ah afweyniyo shabaab baa kuwaa ka arxan roonaaye iyagaa ataagii lahaa eedhe ay dhacaye iyagaa umulo iyo aroos yidhi askaaxaaye iyagaa majhuunkaa caradan dhigay asaayaaye iyagaa indhool iyo curyaan jaray arwaaxaaye iyagaa islaamahan khatalay inamadoodii iyagaa agoonteer cadiban aabahood dilay iyagaa agoomahan cadiban aabahood dilay iyagaa asay saaray dumar idilahaantoode iyagaa asay saaray dumar idilahaantoode iyagaa badii iibsadiya eeriboodhada ee iyagaa ugaadhii gatiyo ubixi kaymaaye iyagaa islaamka isku diray ehel walaalaahe iyagaa ardaayadana godob aadan noo dhigaye iyagaa ardaayadana godob aadan noo dhigaye iyagaa aqoonsigii dayacay saxar ku awdnaaye iyagaa aqoonsigii dayacay saxar ku awdnaaye inkastoo ilaahay qoray aan axad la dhaafaynin waxaa fari imboortana inaad sababta eegtaane iyagaa dadkii iilka galay aakhiro u diray iyagaa dadkii iilka galay aakhiro u diraye iminkana intii soo hadhay ololinayaane armiga waxaa loo sitaa arankaa kace injir iyo qaniin weeye iyo dulin abaareede ayax iyo kaneeciyo ka daran diir uluufi ahi ayax iyo kaneeciyo ka daran diir uluufi ahi waxba gabaygu wiilo ordaye waxaan ku soo ooday ashkataan alliye heeg u nahay waa ribood adage insha allah dhaha maalmo dhow khayr kugu imane insha allah dhaha maalmo dhow khayr kugu imane insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.